socodsiinaya ayuu kaasi ahaaye bal haatana aynu muqdisho eegnay sanad kasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa oo dadka lagu dhiirigeliyaa maalinta ku deeqidda dhiigga waxaana dadka lagu dhiirigeliyaa in ay dhiigga ugu deeqaan dadka baahan magaalada muqdisho ayaa haddaba koox dhakhaatiiri waxay ka hirgeliyeen hab internetka loo adeegsado oo ay ugu talagaleen inay macluumaadka dadka dhiigga u baahan iyo goobaha ay ku shubi karaanba ka helaan dadka ku deeqaya dhiiggu doctor cumar cabdiraxmaan cali oo ka mid a dhakhaatiirtaas ayaa wuxuu ka warramayaa sida uu shaqeeyo hanaanka ay bilaabeen qaabka uu u shaqeeya abkaan sameynay waa qaab casri ah qofka dhiig bixiyaha ayaa iska soo diiwaangelinaya hadduu joogo soomaaliya oo dhan kadibna waxaan la soo xiriiraya qof dhiig u baahnaa kadibna waxaan ku xiraynaa qof deegaankaasi joogo oo iska soo diiwaangeliyey inta badan waxaa la iska soo diiwaangeliyaa magaalada muqdisho hargeysa kismaayo soomaalida inteeda kale magaalooyinkeeda kale maxay tahay marka sababta aad barnaamijkan dadka dhiigooda ay ku bixinayaan ee dhanka internetka aad u samayseen waxaan oo samaysay abkan tabaarak ICT solution markii aragnay qaraxilkii 14 Oktoobar wadooyinkii la xiray oo aan la tegi karin xafiiskeeni kadib ayaan qorshahani iyo wada hindisnay inoo keentay in ay noogu samaysay si mutadawac ah waxayna ka dhigtay in lagu badbaadiyo hooyooyin Soomaaliyeed iyo qof u dhibanayo dhiig aabkan muxuu taray marka abkan wuxuu taray wacyigelin salahan waxay naga qaadan jirtay lacag inaan dirno fariimo oo wacyigelin ah iyo fariimo dhiig markii xilliga loo baahan yahay balse waxay noo fududeysay inaan diri karno fariimo lacag la'aan ah kadibna aan diri karno fariimo caafimaadka qofka oo aan ku wacyigelinayno kor u qaado dadka sidee u soo ajiibeen aabkan aad samayseen hadda waxaan maraynaa inay iska soo diiwaangeliyeen 1,002 qof taasi waxay ka dhigan tahay in aan u baahannahay in aan kor u qaadno wacyigelintii iyo Soomaali badan dhagahooda inaan gaarno tan iyo markii aad bilowdeen hawshan imise qof ayaad dhiig ka hesheen anaga waxaan soo bilownay hawshani 2015 ilaa iyo hadda waxaan u diiwaangashan 3,012 qof inay dhiig u shubay taasina waxay ku tusaysaa intaan soo bixin ka hor in dhiigda ku deeqista laga cabsanayay balse markii dhibaatooyinka Soomaalida ku soo badbadatay iyo wacyigelinta markay badatay Soomaalida inay ku dhiiranayaan inay dhiigooda bixiyaan dadka tirada badan noocyada dhiig ay bixiyeen nooce ugu badan inta badan waxa ugu badan O+ iyo AB+ balse waxaan ugu yar Soomaalidana ku yar dhiiga minusyada -B- oo mujtamaceena ku yar yihiin dabcan internetkaad ku ururinaysaan mesela waxaad tiri qof kastoo Soomaaliya joogana uu ka qayb qaadan karaa uu isdiiwaan gelin karaa markii wax dhacaana wuu keeni karaa marka qofka hadduu dhiig ku deeqoo kale xageed ku kaydinaysaa markay baahi jirto isbitaalkii ehelka ay nala soo xiriirayo hay'adaas la xiriiraya leeyahay lambarweyn ay haystaan kadibna dhiigii isagoo fresh ayaa qofka lagu shubaya dhiigga waxaa hubinaya isbitaalka ayaa mas'uuliyadda ka saaran dhiigga badqabkiisa sababtoo ah haddii aan dhahno waa keedinaynaa mas'uuliyad weyn waaye waxaa loo baahan yahay qalab wanaagsan tiknoolajiyad wanaagsan oo casri ah balse intaasi ma heli karno laakiin intaas nafta ma ku simaysaa qofka dhaawaca ah ee dhibanaha ah ee dhiigga uu ka qulqulayo marka soo ma noqonayso in tacaddi badan la samaynayo walow ay jiraan dad diyaar oo inay dhiiggooda bixiyaan dabcan taasi meesha way ku jirtaa qof la badbaadi karay in ay wadooyinka ka xirmaan oo kale balse dhiigga haddii inoo keedsanaan lahayd oo banki qaran oo la heli lahaa wax badan ayay fududaysaa se waxaynaynaa in dadaalo ay wado xukuumaddeena iyo qaybta caafimaadka inay furi doonto howsheedii ku guda jirto marka maxay yihiin caqabadaha idinka hor yimid tan iyo markii aad hawshan bilowdeen caqabadaha way badan yihiin waxaa naga hor yimid in dadkii diyaar u yihiin inay dhiigooda deeqaan registerkeena waxaa ku qoran 14,100 qof inay dhiigooda deeqaan oo buuggeena ku qoran yihiin dhammaan dadkaas waxay diyaar u yihiin inay dhiigooda deeqaan ayagoo la qasbin doctor cumar cabdiraxmaan ayuu kaasi ha u warramayey cabdifataax ibraahim cagayare waa tahay dhegeystayaal bal haatan aynu eegno qodobka ugu muhiimsan wararka ciyaarahe maamulka kooxda Chelsea ayaa